وعروت العر يدرك العر موجي هذا ولي xilli maalmahan ay da'ayeen roob ay ku dirsadeen dadka iyo dunyada haddana saameyn u geystay qaar ka mid ah beeraha ku geedaaman webiga Jubba ayaa habeenkii xalay webiga waxa uu sameeyay fatahaad aan weli ka dhicin wixii ka dambeeyay 1997 xilliga oo ay dhacday fatahaad saameysay dadka iyo dunyada fatahaad uu sameeyay webiga Jubba ee magaaladan Baardheere waxay hakad gelisay socodka dadka iyo gaadiidka waxayna adeegsanayeen bulshada gaari dameer oo ay u kala gooshayeen labada dhinac ee magaalada sidoo kale suuqyada magaaladan Baardheere ayay saameysay fatahaada iyadoona la arkayo goobo ganacsi oo ay biyaha galeen beeraha dhankooda ayaa laga soo sheegayaa in matooradii ay qaadeen biyahan oo ku socda si xawli ah tan iyo tan waxa uu dhacay farq horta biyo waligeed fatahaadi ka damba oo fatahaadi hore ka damba biyo noocan ma nacay fatahaadi hadda balweyna ka dhacday mid Baardheere ka dhacday tan hadda ka dara way biyaha waligeed meeshan ma imaanay waad arkaysaa saakata waxa meeshan ka dhacayo ilaahay baa mahad iska leh qasaaradeen hadda wali maana soo koobin maana tiri koobin aqbadato alxamdulillah waka waa nabad saaka meeqa qaad saaka lacagtan tirsanaa samaarto tadawqa ala ruux 8 ma sha Allah ala ruux meeqa qaadaysa 8 hay meeshan waa suuq yare waa magaaladii waa fiyaalihi wabigi baa nagu soo fatahay waa fatahaad ilaahay baa ka codsa ilaahay baa khayr badan hana siiyo xogayaha dawladda hoose ee degmadan Baardheere ee gobolka Gadow Buraale Ibrahim Xuseen ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada deegaankan inay isku gurmadaan isagoo dhanka kale dawladda federaalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka dadkan u baahan yihiin meelay hooy ma haystaan guryo ma haystaan alaabtii haba sheegin waxa way arintaas waxaan leenahay hay'adaha samafalka dawladda Soomaaliya iyo ummadda muslimiinta in dadkaas ay waxay awoodi karaan ay u soo gaaraan waa tan waxaan dhigi karaa waa tii beledweyne oo kale fatahaadan tii beledweyne ka dhacday mid la mid ah way hadda magaalada dhaxbartanka saan ay tahay ka waran gudaheedii marka suuqa gudaha ahaa waa ka sii daran yahay Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheere ee gobolka Gadow